waaye wixii ku xiran yihiin xagga alle shalay ayaa isku kay duceyseen inaan iskuursano waa iskuursan waxaan noogu duceyseen inaan maxaan ku dhahay aad ilaahay u badnasiib ilaahay wuxuu nasiiyey raasiya qurux maasha Allah kan jiifta hadda in joogtaa soo waday intaasoo dhan dadkii ii sameeyey ayaa haddana waxay aan arkay inay ka naxsan yihiin waxaa iigu daray video aa soo geliyey qofkas inaan blogarayaa rabaa videoga marka qofa miya hadalkii ma xasuusto ani hadda idinkama sheegi karin soo qofkaas waa wuxuu dhahay baraankiga ahaa ma dhammaani miya markaas qof wuxuu kusoo qoray ilaahow baraanki ka dhigo dhaha qofkaas yani gabar inay aheedaan umalaynaya hadalkaas yani ilaahow baraanki inuu noqdo ayaaba ii fiicnaa laheeda sababto waxay dareensiisa qofkaas halka wanaaga ama jaceylka ama horumarka ama reerkay inuu dhisnaan inta qofkaas kula rabay dadkaasoo badan oo miirana ku jiro dad kale oo xunna way ku jiraan hadda waxaa jirto laba qofood aa jiraan snapchatkii maybe inay daawan doonaan labadaas qofood dad badan ay soo weydiiyeen laakiin labadaas qofood especially markay weydiiyeen qofkii yani hadal oo aniga aan maaragtay markaas qiiro geliyey oo yani isira qofkaan de qof wanaagaaga jecel waa u jawaab waad salaamantihiin daawadayaasha iyo akhyaarta qiimaha qadarinta mudan ee hawada ku saaxibnay ama nala socota sidaad wada ogtihiinba ama aad ka dharagsan tihiin ama aad fahansan tihiin ama aad 24 saac aragtaan ama aad la socotaanba waxaa jiro arrimo qoys oo yacni muxuu ahaa aad iyo aad lagu dhibaataysan yahay social media waxaad ogtihiin ood markhaati ka tihiin in social mediaha nolosha taallo ay tahay nolol ka duwan midda saxda ama midda lifeka ah taasi oon ula jeedo lamaanahani markay wada joogaan ama wada fadhiyaan waxay idiin soo gudbiyaan halkooda quruxsan intooda wanaagsan gurigooda oo sharaxan oo wanaagsan iyagoo isku faraxsan oo isku qoslayo laakiin nolosha dhabta ah ee guriga dhex taala taasi way ka bedelan tahay waxaan ula jeedaa haddaad aamintood istiraado lamaanahan weligood ma kala tegi doonaan ama way isjecel yihiin wada khaldan tahay waa lagu baadiyey waxaan ula jeedaa waxaad ogtihiin lamaano badan oo aada isku jeclaa oo miidiyaha lamaano kusoo geli jiray iyagoo faraxsan iyagoo isku maran iyagoo qoslaya iyagoo sheekaysanaya iyaga oo hadduu alla ku ran yahay arrimaha masiirkooda ama mustaqbalkooda ka hadlaya iyaga oo iska ciyaaraya waxay ahaataba lamaano qurux badan baa lidiin soo gudbin jiray laakiin kumaadan fikiri jirin ama maadan malaysan jirin in lamaanahani beri ka maalin ay noqon doonaan lamaano soo ahaan jiray laakiin hadda walaalo ah oo asxaaba taasina horta markasta qadarta alle iyo qoraalka eebe ayaa shaqeeya oo ma jirto wax meel isaga qortay oo fuli kara ma jiraan ilaa ilaahay xaggiisa inay ka hirgalaan mooyaane lamaano badan oo aada isu jecel ood markhaati ka ahaydeen oo wada taqaanaan ayaa isfuray oo social media ku jiray in la isfuro oo la kala tago ceeb ma aha xumaato ma aha dhibaato ma aha laakiin waxaa dhibaato ah in laba qof oo isjecel oo wada jooga la kala geeyo iyo in laba aan israbin oo isku soconin ba la isku keeno hadalkaasi ujeedadiisa waxay tahay waxaad moodaa inay ka dhaadhici la-dahay hablaa la furay iyo hebel baa kala tegay dadkani war furiinku waagi hore mise sida hadda aan joogno waagi hore furiinku ceeb ayuu ahaa gabadhu xumaato ayay u arki jirtay ninka wuu ka fogaan jiray oo xumaato ayay u arki jiray wax kasta oo dhib oo gabadhan ay ku haysta ama dhaqan xumaa ama isku fahmi waayaan wuxuu ahaa mid u dulqaata oo dusha ku rarta dhibaatadaasi gabadhu waxay ahayd kelmadda furiinka mid ka cadhoota kana cararta una samaysa si aan loo furin wax kasta oo ninkaasi uu raalli ka yahay ama furiinka uu kaga baaqan karo laakiin maanta taasi ma jirto dhoolatus beena sheeko qurux badan oo beena guri qurux badan oo beena aan waxba ka jirin iyo weliba ilmo aad isdhahaysa mararka qaar ilmahani dabcan siday hadhow mustaqbalkeedu u noqon doonaa taasi oon ula jeedo ilmahan 24 saac caloosha ku jira waxaad arkaysaa gabar dhiganaysa xafladdii walaaca xafladdii 4 bilood xafladdii 6 bilood si u wado xafladdii umusha xafladdii 40 baxa xafladdii walaaca kale marka canugan isagoo uurka ku jira lagu bari markuu dhashay iskaba dhaaf ifka uu imaadee marka nolosha taala media waa noloshaasi laakiin midda saxda ah oo qoyskan ay ku nool yihiin taasi way ka babcan tahay oo ah labadan qof ama way isku dhib qabaan ama way isfahmi laayihiin ama way isdagaalaan sida dadka caadiga ah laakiin marka adin lagu soo gudbinayo nolol qurux badan baa lagu tusaa
taas waa xaqiiqada dhabta ee social media taalla. haddaba dhibaatadaasi oo dhan waxaa ka mas-uula ragga xaasaska iyagu ay qabaan ee loogu talagalay inay private u ahaadaan ama guryahooda u joogaan, ubadka ilaahay uu ku manaystay ee ilaahay uu siistay ee loogu talagalay inay waxbarasho wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ay helaan oo gurigeeda joogaan loogu talagalay la wadaagaya mujtamaca. waxaa mas-uulka ah gabadha walaca u dhiganaysa xaflad, uurka 4 bilood xaflad u dhiganaysa, 6 bilood iyo 5 bilood xaflad u dhiganaysa, umushana xaflad u dhiganaysa, 4 kabahan xaflad u dhiganaysa, dabeedna markii la furana xafladda furitaanka dhiganaysa. xafladda furitaanka dhiganaysa waa adduun siduu ahaa la rogay oo saa loo dabagediyey oo jiifaan iyo dhexda taagannahay inaguna oo la ragmanay oon la gadoomnay. gaari hoobanaya oo dhinac dhan lugihiisa dhulka ka qaaday baan saarannahay oo socda oo saa u hiilsan baan saarannahay. waxaana kugu markhaati ah gabdhaha inamaha ah markii la dhisto ama la aroosto ama ay nin helaan waxay ka cadhoon jireen hablo uur bay leedahay, say ula gabanayaan tabarta urun sheegi jirta way ku dhali jireen, sidaas bay ku dhalma bixi jirta islaantani. laakiin maanta gabadhani xitaa maalinkaa 7 ee ka soo baxdo walaci ay isku aragtay la wadaagaysa dadka ayadoo mataqayda soo duubi, ayadoo mataqaysa, iyadoo wax dhan cunaysa, iyadoo war iska dhaaf wax kale ee social media anshaxumada iyo falaad xumada iyo nijaasnimada taalla. bisha ramadaan soo dhaafnay waa kugu daliila. bisha ramadaan soo dhaafnay gabdhuhu yacni ama dumarka waa ay ka duwan yihiin ragga markii la yidhaahdo oo yacni waxaa ku dhaca xayd ama dhiig waxa la yidhaahdo oo iska normal ah, ceeb ma aha dhiigga inuu ku dhaco kitaabada lagu sheegay xukunkiisa siduu yahay iyo qaabkiisaa la sheegay, ceeb ma aha. laakiin anshax xumada, falaad xumada, dhaqan xumada iyo xishoodka yaraaya dartii maalinka gabadhaasi xukunka uu ku dhaco waxay soo dhigaysay tiktok ayada oo dhahaysa oo cunto cunaysa oo hargel cunto cunaysa oo ku haysa markuu kaasoo dhexgalo muxuu ahay walba sidaas uu kaasoo dhexgalo soomaadan fahmin. waa caadi fadeexadii oo socoto oo luga leh, fadeexadii oo socoto oo luga leh weeyaan. waayo qofkani waxay u sheegayso qof kaloo dumara ma aha, hooyadeed ma aha, walaasheed ma aha, balaayiin rag ah, kii mustaqbalka, adeerkeed, aabaheed, abtigeed, isirkeed, aabaheed afirkiisa, ummadii o dhan ba daawanaysa, sodonkeed, siidigeed, dumaasheed war waxaan dhahda garan maayo, wixii o dhan baa daawanaya. kaasay ku leedahay maanta waa faraxsanahay, soonka waa iga buray, waxaan ku jiraa isbuuci fasaxa. marka lama yaabayno marka inay laba isjecel isfuraan ama laba isjecel isku dhacaan ama laba isjecel ay kala tagaan. lama yaabayno laba ilmo isku dhalay oo wada degnaa inay kala tagaan, waayo nolosha ay ku nool yihiin baa khiyaali ahayd. waxay sameynayaan baa waxba ka jirin, jacaylkaasaa bug iyo qac ahaa waxba ka jirin oo isku danaysi ahaa. marka halkaasay noloshooda ku egtahay. saas darteed dhalinyarada iyo mustaqbalka iyo jiilka dambe iyo dadka hadda muxuu ahaayey mustaqbal doonka ah waxaan kula talin lahaa anigu ahaantayda inkastoo ay jiraan dad iga horreeyey oo waxaa intay soo gudbiyeen haddana iyagu falki sameeyey, laga yaabo laftirkeyga inaan sameeyo. waayo haddii aadan samaynin waa dambaysaa, damiin baa tahay. lamaanayaashaa la daawdaa, la xiise geliyaa, lamaanayaashaa la dhiiro geliyaa. keligaa haddaa tahay waxba matihid, dad matihid, keligaa isma soo bixin kartid. marka rag badan oo sidan oo kale ka digi jiray arrinkaa in family media la keeno ayaa ku dhacay marka dambe daminka. waxaa ka mid ah maxamed buskud baa ka mid ah ragga ku dhacay, nin la yidhahdo dhalinyaro ah oo youtuber ah ayaa ka mid ah. waagi hore wuu u diidi jiray islaantiisu inay xitaa hadalkeeda kamardaa ka dhex maqlo, laakiin waagi dambe caadi buu usoo fariisiiyey oo muuqaalo tiktok iyo youtube markasta la samaysay. waayo waa lagu caayey, waa lagu reebaadiya tahay baa le jaahil oo waxba fahmaynin. marka qarnigaasaan joognaaye hadda qaaliladan hadalladeedan maadaama waxay igubaya iyagu yihiin aan la qeyreysanahay oo la dareemayo dhibka iyo weliba warxumo tashiilka iyo dhaga hadalka iyo xitaa meesha soomaalida ay ka gaartay xumaatada aad arkaysay waxyaabo kale oo hadda afkayga aan soo marin oo markaasi ay gabadhaas maskiinta usoo qorayeen ama ay kaga naxsanayeen. daawada muuqaalka inoo sheergareen aragtidaadana qaybta commentiga nagula wadaag adigoo mahadsan.